munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuusay bil dhalashada nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo dhameystirka kitaabka siirada nabiga ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Jigjigeer waxaana ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo culimo aad u tiro badan waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo qaar kamid ah culimadii munaasabadaasi ka soo qayb galay waxaana ku dheeraadeen in la weyneeyo isla markaasina la xuso bil dhalashada xuska nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaana kamid ah hadaladoodii ومعي فقراء المؤمنين وحسد مركي دينعيدayda socdo ila galay markaan ugu horgalayo فقراء المؤمنين dadkayna fuqarada ee masaakiintii qiimahaas leeyahay hadaynu maalin markaa u qoondayno inaynu ka farxino xabiibkoodii xasuusino oo iyagoo gaajaysan aan dhargino ka jeelka ku jira cunto u geyno ka dhakhtarka jooga wax u geyno ka miskiinkeed dayacan wax siino oo niraahno ku farx waa xabiibka Muhammad maalintuu dhashay lianna farxadda maalintuu dhashay lagu farxayaa sida Bukhari soo guuriyay أدب المفرد كيس كسو جوري مسلم كإسكده حتى قال كوي أنفعضه حتى قال كأي آخر حتى غنفعضه قال كوحو وناك سمية الدنيا ده إلهي كوابالية لكن آخر وحكم له العمل الوحيد لو وريي أو سجن أو صاء أروري أو بخاري ممكن نيوينا صاقاتي عمل ككلية قال كي آخر كوان فعي وكفر حتى الله كفر حد على شد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي أدب المفرد بخاري كسو صاري عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيها بين كل رياضي ولالكي أبو اللهب كتبت إذا أبي اللهب كسودكت حال كاجا كور بوري واللي عذابي بوري هدان لقيت إن روح عن هلا بوري مالين كستو اثنين يا بيير لي ورابيا وحلا يقول هذا فرحة دي أتكون فرحة دي على شدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله محمد مؤمنين توحوا هي mid u dabacsan oo u tura oo u naxariis badan weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa rabbi subxaanahu wa ta'ala uu doortay in rasuulka dambigiisii hore iyo kiisii dambaba ilaahay uu ka dhaafo waxa waxa soo dhami waa qadarin iyo weynayn ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu wa wada'na anka wizrak rasuulullaahi muhammad oo dambigii ayaanu ka dajinay oo waanu ka dhaafnay buu alla leeyahay subxaanahu wa ta'ala waxa ilaahay uu doortay أخلاق ديسي شرفت بدنيد وإنك لعلى خلق عظيم وحد نبي الله كدل سقانتهاي أخلاق أن لكوبي كريم وآدي آدوين آيات كدل سقانتهاي رسول كان إلهي ودورتي ونكرر لنقضي ولسوف يعطيك ربك فترضى أيها الله سبحانه وتعالى والواحد يشان وحكى لها دا سمي ويدان ودقال كلا جلي كري ويدان وكل كاد مساجد هذا صوق شان كل يبقى قرآن كي واضح خريا إنسانه كتاب كان قرآن كاقاته كاخريا بحال كنا ده هذه أيضا ما يقول كاد دي بدها جوكتان كاخرسنا ولا ليا وحن ليها أنت عاو وحن كجفا إذا سنة يا حفلة ده وحد يشان ولا ليا صدا خير كلا الله ينوافجيو لأن يروي وقتي وانا أقسم بعض الله كلانتين نولشان وسوق قاعدني يا رفات كي أدون كان لصومري يدين تنلبت اللي